daawadayaal barta si toos ah noogala socotaan warbaahinta iftiin TV xaaladda cakiran ee gobolada awdal iyo selal rasaastoo la isdhaafsanayo dhimashada iyo dhaawaca oo batay waxaa waraysi la yeelanay halgamaa mujaahid axmed xaashi dharaar axmed kusoo dhow warbaahinta iftiin TV sidaad u aragtaa xaaladihii u dambeeyey gobolada selal iyo awdal iyo israsaasaynta bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad baad u mahadsantihiin iftiin TV waanan dhowahay haddii aan ka jawaabo su-aasha aad i weydiisay xaaladda gobolka awdal ka taagani runtii waa xaalad murugsan run ahaantii waxaanan u aragnaana dad lagu soo duulay jiritaankoodii iyo dhulkoodii dagaalku dadka sida loo jiheeyeyna ma ahine waxa weeyaan runta marka laga hadlo dagaal uu soo qaaday maamulka Hargeysa oo uu cirra ka taliyo waxaan u aragnaa inay tahay dagaal aargoosi ah oo isirtirtirid dhul la qaata ah runta marka laga hadlo taasaan u aragnaa marka waxa weeyaan dadka reer awdal dhowr iyo 30 sanadood bay nabad ka doorteen inay ku noolaadaan dhulkoodii baa la qaatay istaraatiijiyan waa lala dagaalamay dhaqaalaha lagala dagaalamay ugu dambeyntii waxay gaadhay heer ay la yiraahdo dhulkiini ayaan qaadanaynaa runta marka laga hadlo waxyaabo badan oo jiray oo dad waxa jira dhulkoodii oo beera ahaa oo degaan ahaa oo ilaa intii asnamta dhulka haysatay baa loo diidanaa inay degaankoodii ku noqdaan oo sida degmooyinka Seylac oo kale iyo Lughayaba waxaa kaloo jiray goobo kale oo iyaguna dhinaca koonfurta awdala oo iyagana inta la xiray degaamiin lagu waday wixii oo dhan waa la isla soo dhaafay waxay noqotay marka in dhulkii Gadabursi lagu soo duulo oo la yiraahdo dad jiramatiin marka waxa kaliya taan faraya reer awdal waxay tahay dagaalku waa dagaal isirtirtir ah aargoosi ah mashruucii Soomaaliland la yiraahdo wixii loo oran jiray uu dhamaaday federaal ba Soomaaliya loo guuray inta ka horeysa la rabaa in la idin tirtiro dhulkiina la qaato fariinta kaliya ee aan reer awdal maanta halkan uga daray waxay tahay dad nabad jecel baan nahay dad aanan damac lahayn baan nahay laakiin intii oo dhan waa la isla soo dhaafay maanta jiritaanka la dagaalamaya waxa kaliya ee ku banaani oo weligeedba taariikhdeenuna ahayd inaynaan dad damcin marka layna soo damcana la isdifaaco maanta kani waxa weeyaan jihaadul nafsi weey waa jihaad ima nasr ima shahaada wax ka dhaxay ma jiro sababta qofka islaamka marka dhulkiisa iyo jiritaankiisa iyo naftiisa iyo maalkiisa marka lagu soo doonto kaliya waan isdifaaca Soomaaliya way burburtay 35 sanadood bay burbursan tahay reer waliba dhulkiisa buu haystaa ka soo bilow Kismaayo ilaa Hargeysa lagu soo gaaro dadka kaliya ee loo dawladeeyay ee la haystay waa reer awdal bifadlakum kacdoonka aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa anigu buuraha buuraleyda libaxley baan joogaa abaabul baan wadnaa kaliya waxay noo banaani waa in la isdifaaco hooyooyinka Samaroon ee khaasatan Boorama jooga dhalinyarada Samaroon ee Boorama jooga aad iyo aad ayaan u bogaadinayaa fariinta halkan aan uga dirayana waxay tahay shamci kacdoonka tiin biidnillaahi tacaala guushana wad helaysiin kaliya waxaanu kaliya aan oranayaa shuhadada Allah u naxariisto laakiin inay dhintaan kama naxayne wixii ay u dhinteen in la carqaladeeyo oo la siyaasadeeyo oo la fashiliyo kaliya haddii taasi dhacdo uun bay dhinteen laakiin hadda waa shuhada wixii ay u dagaalameenna waa inaad ka dhabaysiin aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa daawadayaal waa axmed xaashi dharaar waxaa qadka si toos ugu jira oo ka mid ah hogaamiyayaasha awdal state axmed su-aashayda u dambaysa maxaad ka filaysaa hadda salaadiinta Hargeysa laga soo diray iyo salaadiinta reer awdal ee hadda ku kulmay rays si walaal waxa weeye su-aashaada haddaan ka jawaabo waa ciigi waa ka bariyay weeyaan ma ahayn maanta ma ahayn in erga la soo diro cirra ugu talagalay barnaamijkani barnaamij socduha intaasoo jeer bay odayadeenu tageen waa la ixtiraami waayey ugaaskeennii baa hadlay waa la ixtiraami waayey waxgaradkeennii oo dhan baa la qiimeyn waayey marka ninka imika la soo diray waxaan u aragnaa runta marka laga hadlo waxaan u aragnaa in la rabo in jihaadkaas la fashiliyo taasaan u aragnaa odayadeenna waan ixtiraamaynaa waa hogaankayagii waxaanu ka codsanaynaa bifadlakum ummadiina raaca go'aanka ummadiina aad ku hogaaminaysiin ha noqdo go'aanka maanta la bilaabay
dadkaasina waa dad magana oo boorama jooga oo hargeysa ka yimiday iyagoo nabada guryahoodii ha lagu celiyo xaqiiqiyan waxa weeyaan qof kastoo caqli leh uu garanayaa haddii loogu talagalay waxani oo aunan mashruuc socdo oo sidii loogu talagalay ay u wadaan nimanka hargeysa haystaa haddaynan ahayn markii la hadlay oo ugaaskayga hadlay oo ay culimmadeedii hadashay oo ay hadashay dhaqankayagii dadkayagii oo hormuudka ahaa waxgaradkii markaasaa la qiimeyn lahaa tani waa tu lagu fashilinayo jihaadka sidaa daraaddeed dadkaana waa magangelyo ha la celiyo dhulkoodii odayada sharafteeda odayadayada sharafta lana waxaanu ka codsanaynaa inay raacaan dadkooda jihaadkana ku hogaamiyaan asalaamu calaykum markaas anagu abaabul baan ku jirnaa dagaalku wuxuu noqonayaa haddeetii dagaal xabada ciidamada oo xaquldirarka ah oo madaniga ah oo samaroon meel kasta oo buuraleyda gobolka awdala way joogaan habayntoodii baa socota waxaan rabnaa marka dumarka iyo caruurta madaxa laga tooganayo waad nasan doontiin biidni illaahi tacaala ciidamada madaxoodii way soo galeen boorama inta kalena way ku soo qulqulayaan waad nasan doontiin inta ka horeysana insha allahu tacaala sidaasaa jihaadka ugu sii jiraysin waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto halkan oon ummadda soomaaliyeed keliya fariin inaan u diro annagu waan dagaalamaynaa jiritaankayagana biidni illaahi tacaala waan xaqiijinaynaa waxaan ka codsanaynaa oon ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto aan ka codsan lahayn annagu waxaan ahayn dad lala dagaalamay siyaasiyan dhaqaale ahaan iyo dhul ahaanba dhowr iyo 30 sannadood waan go'doonsannahay oo meel aan anagu ku tiirsanno maanta ma jirto laakiin waxaan ka codsanayaa ummadda soomaaliyeed maanta 2 maalmood oo dagaal ku socdo dawo ma jirto isbitaalkii boorama oo dadkaas sida sagaarada loo leynayaa waxay u dhiig baxayaan hooyada madaxa laga toogtay hadday noolaato ama laabta laga toogtay waxay u dhimanaysaa waa dhiig bax dawana ma jirto in ummadda soomaaliyeed ay dawana la soo gaadhaan meel kastoo ay joogaan halkan waxaan kaloo fariin uga dirayaa cid dhammaan ummadda samaroon ama waddanka ha joogaan ama dibad ha joogaan qofkii dagaalami karayaa inuu dagaalamo qofkii dhaqaalo bixin karayaa inuu bixiyo haddii jiritaankiinnii dad qabaa'il iniga inila mid ihi aw leeyihiin ma jirtiin waxa weeyaan noloshu marbay dhimashadu dhaantaa waxaan ka codsanayaa diaspora meel kastoo joogto samaroon qofku waa inuu yimaado oo dagaalamo waa inuu dhaqaalo soo bixiyo hub la siiyo labadaa waa miduun haddii kale jiritaankaagu ma jiro intaasaan iyagana odhan lahaa